mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa albaabada isugu laabay maxad ay haweenku ku baranayeen sidii ay nimankooda ugu dhagan lahaayeen uguna dabacsanaan lahaayeen iskuulkan oo sheegay in ay casharadu yihiin kuwa ka turjumaya wanaagga iyo dhaqanka waxa lagu eedeeyay in ay ku xadgudbeen qiimaha aragtida hanti wadaaga muuqaal internetka lagu baahiyay ayaa waxa uu muujinayaa macallimiin sharaxaya casharo ka soo horjeeda sinaanta ragga iyo dumarka barayaasha ay haweenka kula talinayeen in aysan dagaalamin hadii la garaaco iskuulka noocan ah ayaa Shiinaha ku soo badanaya sanadihii ugu dambeeyay muuqaalka oo aad u baahay ayaa waxa ka muuqday macallimiin iskuulka oo u sharaxaya haweenka in aysan isku dayin in ay wax bartaan ayna u noolaadaan heerka nolosha hoose oo kaliya sidoo kale macallimiinta ayaa dumarka ku baraarujinayay in ay shuruud la'aan ay uga hoggaansamaan aabayaashood nimankooda iyo wiilashooda talooyin kale ee uu bixiyay iskuulkan ayaa waxa ka mid ahaa in aysan dumarku dood ka keenin hadii la garaaco iyo in aysan weligood isku dayin in ay furin dalbadaan wax kasto siigaaga ku weydiiyo jawaabteedu waa inay noqoto haye waan aqbalay waxa sidaas ardayda u sheegtay mid ka mid ah macallimiinta dumarka muuqaalka waxa ku jiray dumar sameynaya shaqada guriga sida nadiifinta dhulka iyo masquulaha iyagoo isticmaalaya gacmahooda sida uu qoray wargeys lagu magacaabo Global Times qaar ka mid ah shaqaalaha iskuulka oo la furay 2011 ayaa diiday in la xiro waxayna majalada u sheegay in muuqaalka la baahiyay ay ka been abuurayo shaqadooda oo ah in ay horumariyaan caado dhaqameedkay warbixin lagu daabacay barta oo xafiiska waxbarashada fashion ayaa lagu yiri casharada iskuulka waxay lid ku yihiin anshaxa bulshada waana in si degdeg loo xiro sida oo kale waxa la amray in ay baadhitaan ballaaran la sameeyo oo la raadiyo hadii ay jiraan iskuulo kale oo kuwan la mid ah Sheybe Cumar Ismaan sheego sheekay magaalada Bro